waxaan si gaar ah u salaamayaa wasiir Hinda iyo Boqor Axmed gudoomiyaha xarunta akademiyada Adam waxaan kaloo aad u xusayaa wariyihii soo diyaariyay documentary-ga agaasimaha TV-ga iyaguna aad bay mahadsan yihiin runtii farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan aadka u weyn sida wanaagsan looga soo qayb galay oo nuxurkeedu yahay foolxumada inaynu muujino takoorka beelaha la takooray runtii waa dhaqan soo jireenaha oo aan ku koobnay Somaliland laakiin dadka Soomaaliya ku hadla oo dhan ama deegaanada Soomaalida oo dhan ka jira waxaan u mahadnaqayaa abwaanada madaxda runtii muddada dheer ku soo jiray halganka ah in la suuliyo takoorka ama suugaana ku muujiyaan riwaayadii Axmed Awgeedi dadku waa isku dhoor hal dhamaada takoorka nuxurku intaas ku eegyahay runtii waxaynu ku suulin karnaa takoorka dadaalka aynu dadaalayno iyo wacyigelinta qodobada kale lagu suulin karo waxa ka mid ah in sharci laga soo saaro takoorka ama discrimination-ka waxa la yiraahdo dawladaha dunidu ama kuwa Yurub ha noqdaan ama kuwa Mareykan ha noqdaan waxay kula dagaalameen ugu horeeyay waxa weeye in sharci jiro takoorka lagu burinayo in bulshada la dhiso oo dhaqaalaheeda la dhiso oo tacliintooda la dhiso oo hankooda la dhiso xisbiga wadani xilligii campaign-kii madaxtooyada ugu dambeeyay wuxuu xisbiga kaliya ballan qaaday in wasiirka ugu horeeya uu magacaabaya uu noqdo beeshan ama beelaha ballantaasi wali waa noo taagantay haddii ilaahay keeno dee xukuumadda hadda joogtana xasan baa la taliyay abwaanko wuxuu yidhi wasiirka ugu horeeya yaan mucaaradka soo socda idinka dheerayne hadda ku dhawaaqa marka fariinta Hinda qaadaysaan malaynayaa caawa waa sugaynaa laakiin anaga ballantayadii waa taagan tahay waxaan kaloo runtii ku faani karaa in xisbiga wadani uu beelahaas xilal waaweyn oo muhiim ah xisbiga uga dhiibay diyaarna uu yahay inuu qaar kale u dhiibo haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku soo koobayaa kelimaduu yidhi abwaan xasan oo ahayd inaynaan isu qaybin qaar wax dulmaya iyo qaar la dulmayo laakiin dagaalka aynu meel uga soo wada jeesano oo ka wax dulmayana laga xoreeyo dulmiga kala dulmayana iska xoreeyo lagana xoreeyo dulmiga ballanteenu waxa weeye inaynu takoorka la dagaalano beelaha sida gaarka loo takooray iyo ciddii kale la takoorayaba hadday tahay hablaha hadday tahay dadka naafada takoor oo dhan baa inoo ballanay in la dagaalano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته